weli ma isweydiisay dawladaha xuduudaha ugu badan la wadaaga wadamada ay jaarka yihiin. haddaba maanta waxaan idiin soo gudbin doonaa 10 wadan ee ugu xuduudaha badan dunida. assalaamu calaykum, ku soo dhawaada kanaalka Cabdicasiis Boodle. waxaa jira wadamo badan oo ku yaala qaaradda Yurub oo ay la daris yihiin 8 wadan. kaalinta 11aad Australia. waxaa ku xeeran wadanka Australia 8 dawladood oo kala ah Germany, Switzerland, Liechtenstein, Italy, Slovenia, Hungary, Slovakia iyo Jamhuuriyadda Czech. kaalinta 10aad France. wadanka France waxa uu la leeyahay xuduud 8 dal oo kala ah Italy, Switzerland, Germany, Luxembourg, Belgium, Spain, Andorra iyo Monaco. kaalinta 9aad Serbia. sidoo kale waxaa la daris ah wadanka Serbia 8 dawladood oo kala ah Bulgaria, Romania, Hungary, Croatia, Bosnia iyo Herzegovina, Montenegro, Kosovo iyo Macedonia. kaalinta 8aad Turkey. wadanka Turkey oo isna aan ka fogeyn wadanka Serbia waxaa la daris ah 8 dal oo kala ah Syria, Iraq, Iran, Azerbaijan, Armenia, Georgia, Bulgaria iyo wadanka Greek. waxaynu u wareegi doonaa qaaradda Afrika. kaalinta 7aad Tanzania. wadanka Tanzania oo daris la ah 8 dawladood sidoo kale waxa ay kala yihiin 8 dawladood Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo, Zambia, Mozambique iyo Malawi. kaalinta 6aad Zambia. iyana waxaa la daris ah 8 dal oo kale Mozambique, Malawi, Tanzania, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo, Angola, Namibia, Botswana iyo Zimbabwe. kaalinta 5aad Jamhuuriyadda Koongada Dimuqraadiga. sidoo kale Jamhuuriyadda Koongada Dimuqraadiga ayaa jaar la ah 9 wadan oo kala ah Suudaanta Koonfureed, Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe, Jamhuuriyadda Congo, Angola, Zambia, Tanzania, Burundi, Rwanda iyo wadanka Uganda. kaalinta 4aad Germany. 9 dawladood ayaa jaar la ah wadanka Germany waxaanay kala yihiin Denmark, Holland, Belgium, Luxembourg, France, Switzerland, Austria, Jamhuuriyadda Czech iyo Poland. kaalinta 3aad Brazil. wadanka Brazil ayaa isaguna ka mid ah wadamada xuduudaha aadka u badan la leh dalalka ay jaarka yihiin. waxaana uu xuduud la leeyahay 10 dawladood oo kala ah French Guiana, Suriname, Guyana, Venezuela, Colombia, Peru, Bolivia, Paraguay, Argentina iyo Uruguay. Brazil waxaa ku xeeran dhammaanba wadamada ku yaala qaaradda Ameerikada Koonfureed marka laga reebo 2 wadan ee kala ah Chile iyo Ecuador. kaalinta 2aad Russia. dalka Russia oo ah dawladaha ugu weyn dunida oo ku baahsan qaaradda Asia iyo qaaradda Yurub waxa uu xuduud la leeyahay 14 dawladood oo kala ah Kuuriyada Waqooyi,
China, Mongolia, Kazakhstan, Azerbaijan, Georgia, Ukraine, Belarus, Poland, Latvia, Estonia, Lithuania, Finland iyo Norway. Kaalinta koowaad China. Sidoo kale waddanka China ayaa ah wadamada xuduudka ugu badan la leh wadamada ay jaarka yihiin, waxaana uu xuduud la leeyahay 14 wadan oo kala ah: Kuuriyada Waqooyi, Russia, Mongolia, Kazakhstan, Afghanistan, Pakistan, India, Nepal, Bhutan, Myanmar, Laos iyo waddanka Vietnam. Baaritaano kale ayaa jira oo ku dara 14 dawladood. Laba dawladood oo kale, labada dawladoodna waxa ay kala yihiin Taiwan iyo Japan, iyagoo cuskanaya bridge-yada isku xidha wadamadaas iyo China. Ugu dambayn, liistadan waxay la xidhiidhaa wadamada xuduudka beriga la leh wadamada ay jaarka yihiin. Intaas ayaynu ku soo koobi doonaa barnaamijkeena. waad ku mahadsantahay daawashadaada.